waatahay saaxiibayaal ku soo dhawaada qaybtii labaad ee sheekadii xiisaha badneed Thousand Nights and Nights alfa leyl waleyl kun habeen iyo habeen qisadii la magac baxday waxaan maraynay when she was escorted waxay noo jeertay isagoo loo guuriyay gabadha kadibna ay sheeko u bilaad waxaan leenahay when she was escorted markii loo guuriyay to him gabadhii Shahrazad loo yiqiinay markii loo guuriyay isagii she began waxay bilowday to date him inay u sheekayso waxay bilowday to date him inay u sheekaysay bilowda marka until midnight ilaa saqda dhex laga gaaro sheeko u bilowdaa ku dhex sheekadii guud marka the king boqorkii is requesting her oo ka codsanayo markaasuu boqorku uu ka codsaday iyadu to stop dating inay joojiso sheekada aad ugu bixis qofka sheekada inuu joojiso ayuu ka codsaday aan saying wuxuu ku dhahay you will come with me waad ii dhammaystiri doontaa the next night habeenka xiga aad ii dhammaystiraysaa meena ma wala dilaa qofkaas marka habeenka xiga aad ii dhammaystiraysaa baaliye until illa the reach ay ka gaartay thousand nights kun habeen and night iyo habeen ilaa kun habeen iyo habeen ay ka gaarto sheekadii yaa socotay and he got from her wuxuu ka dhalay one son hal canig ayuu ka dhalay hal wiil ayuu ka dhalay but laakiin there is a famous story taariikh sheeko caan ah ku duugan marka pertaining sheekadaasoo ku saabsan taariikhdaas son wiilkii la dhalay kunka habeen la sugayo dhashtay haddana qiso kale laga sii sameeyey marka qisadiisa aad u sii xamaasadaysan who thought thief kaasoo loo maleeyay tuug wiilku waxaa loo maleynayaba inuu tuug yahay but like he was not thief tuug muusan ahayn sidee loogu maleeyay laakiin maxaa ku kalifay in tuug loo maleeyo sidee ku dhacdayna sheekadoo dhammaystiranba halkan ayaad kaga bogan doontaa insha allah xalqada xigta ayaan ku arki doonaa fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka like saa sidaas la mid ah haddii aad ku cusubtahay janaalkuna subscribe saar waxaan saaranaa wadadii aan ku tagi lahayn 700 subscribers mahadsanid